السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halkani waa telefishinka Somali Television Network waxaanu ku sugannahay magaalada Rio de Janeiro ee waddankani Brazil ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aanu kaga hadli doono arrimaha Somaliland sida aad la wada socotaan 3 sano ayaa u buuxsamay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Muuse Biixi haddaba warbixintan kooban ayaa waxaanu ku eegi doonaa muddadii uu xilka hayay waxyaabihii uu qabsoomay waxaan ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland 3 sano ka hor ayaa xilka madaxtinimo uu la wareegay waa siyaasi ruugcada ah oo siyaasadda Somaliland ku soo dhex jiray intii Somaliland ay jirtayba isagoo xilal kale oo muhiimana horay u soo qabtay marka haddaba la qiimeynayo waxqabadka madaxweyne kasta waxa laga soo bilaabaa xaaladda waddanku siday ahayd markii uu xilka la wareegayay madaxweyne Muuse inkasta oo xilka kala wareegay xukuumad ka tirsaneyd xisbigiisa kulmiye haddana waxa uu la wareegay waddan siyaasad ahaan jahwareersan oo maamulka iyo taladuba ay ahayd mid baahsan xukuumaddii isaga ka horeysay waxa jiray siyaasiyiin ay madaxweyne Siilaanyo qaraabo dhow ahaayeen oo waddanka si toos ah uga talinayay siyaasiyiintaasi oo ay ka mid ahaayeen Xirsi iyo Xaashi taasi oo sababtay in ay lunto kala dambeyntii iyo haybaddii dawladnimo dhinaca xaaladda amnigu waddanku wuxuu ahaa mid ay ka jireen xaalado colaadeed oo ka aloosan bariga iyo galbeedkaba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu muddo yar gudaheed dib u soo celiyay nidaamkii kala dambeyntii iyo haybaddii dawladnimo waxaana uu meesha ka saaray isdhexyaacii faraha badnaa ee ka jiray xukuumaddii isaga ka horeysay madaxweyne Muuse Biixi muddadii 3 sano ahayd ee xukunka hayay waxa uu xooga saaray in uu soo afjaro colaadihii iyo deganaansho la'aantii ka jirtay gobollada qaarkood isaga oo raacaya siyaasad qabow oo odaytinimo ah waxaana si nabada u soo afjarmay dhammaan jabhadihii ka jiray waddanka haddii aynu yara jaleecno dhinaca waxqabadka gudaha madaxweynuhu waxa uu sii amba qaaday dhismaha kaabayaasha dhaqaale sida wadooyinka oo ay ka mid yihiin wadada isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Wajaale isaga oo kuwa kalena heshiiskooga qalinka ku duugay sida wadada isku xidhi doonta magaalooyinka Boorama iyo Djibouti oo dhererkeedu yahay 300 kiiloomitir madaxweynuhu waxa kale oo salka u dhigay suuqa dhaqaalaha oo markii hore baaxaadegayay madaxweyne Muuse Biixi waxa kale oo soo kordhiyay barnaamijka shaqo qaran oo ah mid dhalinyarta xirfadooda iyo wadanimadoodaba kor loogu qaadayo isla markaana noqday barnaamij hirgalay oo aad loogu diirsaday madaxweyne Muuse isaga oo dhiiri gelinaya jiilka dhalinyarada mustaqbalka waxa uu xilal fara badan uu ku tahay una magacaabay dhalinyar kala duwan oo reer Somaliland ah oo qaarkood uu dhiibay xilal miisaan culus sida wasaaradda caafimaadka oo ah mid kamid ah wasaaradaha ugu baaxadda weyn waddanka dhinaca arrimaha dibadda haddii aynu jaleecno muddadii madaxweyne Muuse Biixi xilka hayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxa ay noqotay mid aad u hana qaaday iyadoo gaadhay wadamo iyo qaarado ay horay u gaadhin madaxweyne Muuse Biixi waxa uu booqasho taariikhi ku tegay waddanka ku yaala galbeedka Afrika ee Guinea Conakry booqashadaasi oo xataa lama filaan ku noqotay dadka iyagoo darasa siyaasadda geeska Afrika isla markaana aad uga cadhaysiisay madaxda Soomaaliya dawladda Somaliland waxa kale xiriir muhiim ah oo diblomaasi ah ay la yeelatay waddanka Taiwan muddadii uu madaxweyne Muuse Biixi xilka hayay waxa waddanka ku soo qulqulayay wufuud heer sare ah oo ka kala imanayay wadamada caalamka waxa waddanka soo booqday safiiro ka kala socday wadamada Britain Sacuudiga Jarmalka Switzerland Denmark Mareykanka Midowga Yurub iyo qaramada midoobay waxa kale oo waddanka soo booqday madax sarsare oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea iyo wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Britain iyo madaxweynihii hore waddanka Nigeria madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kale uu xooga saaray la dagaalanka musuqmaasuqa isagoo shacabka reer Somaliland u sheegay in mas'uul kasta oo xilka loo magacaabay lala xisaabtami doono madaxweynuhu waxa kale oo uu joojiyay oo meesha ka saaray mashaariic si qarsoodi ah hantida ummadda loogu lunsan jiray
madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu diiday in uu hoggaanka xisbiga kulmiye ku wareejiyo siyaasiyiin qowleysato ah oo ka tirsanaa kulmiyihii hore oo lagu tuhunsanaa in ay lunsadeen hanti dadweyne. siyaasiyiintaasina waxaa hormood ka ah maxamuud xaashi oo horey u ahaan jiray wasiirka madaxtooyada. tallaabadaasi oo ahayd mid ay dadweynuhu aada u soo dhoweeyeen. muddadii 3 sannadood ahayd ee uu xukunka hayay madaxweyne muuse biixi cabdi, somalilan waxa ay ku tallaabsatay horumar baaxad leh oo dhan kasta leh oo la taaban karo, oon aniga laftigaygu soo arkay markii aan booqday sanad ka hor. Cawaale Cabdilaahi, telefishinka STN, Rio de Janeiro, Brazil.